xaaladaha amni darro iyo isnacaybka aadanaha koonkan aynu ku noolnahay maalinba maalinta ka dambaysa waa mid sii xumaanaya. Dhammaan waddamada horumaray iyo muwaadiniintoodana waxa ay saacad kasta ku jiraan diyaargarow dagaalo qadhaadh oo ay la galaan kuwa ay markaas u arkaan cadawgooda koowaad. Badanaa waxaynu aragnaa hanjabaado iyo dagaalo goosgoos oo ay isla gelayaan aadanaha dunida ku noole. Saacad kastana waxaa macquul ah inuu qarxo dagaal weyne koonka halakeeya. haddaba walow ay jiraan heshiisyo diblomaasiyadeed oo inta badan xadidaya isticmaalka hubka sida ba'an wax u gumaadeen nuclear-ka, haddana waxaa macquul ah in haddii ay dhacaan dagaalweyne la mid ah dagaalweynayaashii hore u soo maray dunida inay biyo kama dhibcaan tahay in mar labaad la isticmaalo hubka sida ba'an wax u gumaadeen nuclear-ka. Haddaba daawada muuqaalkeena maanta waxaan ku lafakuri doonaa saamaynta uu ku keeni karo dunida haddii mar labaad la isticmaalo hubka nuclear-ka. Sidoo kalena waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa awoodaha nuclear-kii uu Maraykanku u adeegsaday Hiroshima iyo Nagasaki gebagabadii dagaalkii labaad ee adduunka iyo kan iminka ku jira gacanta aadanaha. Magacaygu waa Yuusuf Xadaari, halkanina waa Irmaan Show. Soo dhawow daawad. daawada intaynaan ka hadlin saamaynta hubka nuclear-ka iyo isbarbardhigga nuclear-kii hore loo isticmaalay iyo kan waqti xaadirkan, waxaan isku dayi doonaa inaan isla fahanno waa maxay nuclear, sideese loo abuuraa tamarta nuclear-ka. Sida caadiga ah, nuclear-ku waa nooc energy oo laga soo saaro bu'da atomka dhexdiisa. bu'da atomka waxaa ku kaydsan neutrono kuwaasi oo ka dhexeeya awood isjiidad oo aad u sarreysa. Haddaba si loo abuuro energy noqon kara nuclear waxaa si qasab ah lagu kala dilaaciyaa bu'da atomka, taasi oo soo deysa energy aad u sarreeya oo keeni kara qarax aad u weyn iyo radiation-ka ama shucaaca saddexda ah ee loo kala yaqaano alpha radiation, beta radiation iyo gamma ray. Radiation-ka ama shucaacuna waa dhibaatada ugu weyn ee uu sababo nuclear-ku. waxaan filayaa daawade inaad ila fahantay waxa uu ka kooban yahay iyo sida loo abuuro tamarta nuclear-ka. daawade, nuclear-ku waa qarax bambaano oo aad u weyn kaasi oo sababi kara khasaare nafeed, mid maaliyadeed iyo mid deegaanba. qaraxa bambaanada nuclear-ku waxa uu hal sakin gudihii arwaaxda dhaafin karaa malaayiin noole, taasi oo ay sii dheertahay khatarta ba'an ee ay leedahay shucaaca loo yaqaano gamma ray oo ka mid ah shucaacyada uu sii daayo hubka nuclear-ku. shucaaca loo yaqaano gamma ray waxa uu ku baahi karaa meelo aad uga durugsan xitaa meesha uu qaraxu ka dhacay, kuwaasi oo ku kaysan karo dhimasho iyo dhibaatooyin kale oo waaweyn sida waxyeelaynta unugyada taranka ee noolaha, oo uu ku sababi karo dhimasho iyo isbeddel ku yimaada unugyada taranka ee noolaha. Tusaale ahaan, shucaaca ka yimaada nuclear-ku waxa uu qofka ka dili karaa unugyadiisa taranka, taasi oo sababi karta inuu qofkaasi noqdo madhalays, amase waxa uu keeni karaa isbeddel ku yimaada qaab dhismeedka unugyada taranka ee noolaha, taasi oo sababta in qofkaasi uu dhalo qof aan dhammaystirnayn sida dhiciska ama qof uu laxadkiisa qaybi maqan tahay. Tan ugu daranina waa isbeddelka uu ku keeno unugyada taranka ee noolaha, oo dhibaatadani waxa ay socon kartaa muddo qarniyaal ka badan oo jiilba jiilka dambe u sii gudbin karaa. Sidoo kale nuclear-ku waxa uu keenaa burbur laxaadle oo ku yimaada deegaanka, waxaana macquul ah in deegaanka ay ku dhacaan qaraxyada nuclear-ku ay noqdaan deegaano ka arada wax kasta oo laha deegaan caadi ahi sida dhirta, biyaha iyo macdanaha kale ee dhulka. daawade, haddii aan isbarbardhig ku samayno awoodaha bambaanooyinkii nuclear-ka ee Maraykanku ku dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki dhowr iyo afartamaadkii iyo kuwa iminka adduunka lagu haysto waxa u dhexeeya farqi awoodeed oo aad u sarreeya. Tusaale ahaan, bambaanadii nuclear-ka ee Maraykanku ku dhuftay Hiroshima waxa ay dishay in ka badan 9,000 oo ruux, halka kii kale ee lagu dhuftay Nagasaki-na uu galaaftay nolosha dad ka badan 60,000 oo ruux. haddaba bambaanooyinka nuclear ee hadda gacanta ugu jira dowladaha qaarkood waa mid aad uga awood badan kuwii qadiimiga ahaa, waxa ayna leeyihiin awood burburineed oo aad uga sarreysa nuclear-kii qadiimiga ahaa ee loo adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka. sidoo kale marka loo eego awooddiisa waxyeelada nafeed uu geysan karo waa mid boqolaal jeer ku labalaamaya kuwii hore. Tusaale ahaan, haddii kuwii dagaalkii labaad ee adduunka ay dileen wax ka badan 9,000 oo ruux, kuwa iminka adduunka yaalla waxa ay sikimo gudahood arwaaxda dhaafin karaan in ka badan 330 milyan oo ruux, wuxuuna sababi karaa dhimashadii ugu faraha badnayd ee ka dhalata dagaal aadanuhu isla galo. daawade, aad ayaad u mahadsantahay haddii aad halkan nala soo gaadhay muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ku eegyahay. ha hilmaamin inaad muuqaalka like inoo saarta lana wadaagto saaxiibada. haddii aad nagu cusub tahayna ku soo biir barteena Irmaan Show oo ka mid noqo saaxiibadeen.